sanadkii naga dishay dubatay jiirkayga dar ilaahay waan kaa naxee dirac miyaad qaaday dadkii baad ka wada oohisee danab miyaad aastay dayaxaad madoobaysay ee demisay nuurkiisa dib miyaan indhaha loo tusayn diirshay ina cawke runtii horta wariye afka Soomaaliga ku hadlo oo ka caansanaa ma jirin magaca Soomaali marka la ilaado qof aan aqoon ma jirin cawkadna caanabu ay una malayn maayo qof Soomaaliyeed oo wariye ah oo ka caansan inuu jiro alla naxariistii jannaha ka waraabiye Axmed Xasan Sheekh Suufi oo loo yaqaanay Axmed Xasan Cawke wuxuu ku dhashay magaalada Togwajaale sanadkii 1943 Axmed Xasan Cawke horta wuxuu dhashay aniga afkiisa sidoo igaga yiri waxaan dhashay 1948 qiyaasaas halkan xabaashiisa imka laga qodayo malaa 300 mitir oo bari loo socdo bartaasan ku wada dhalan wuxuu ku dhashay magaaladan aynu imika joogno ee halka lagu aasayo ee Wajaale oo maanta ku aasayno magaalada Wajaale oo magaaladu ka soo jeeday oo ku dhashay Abi Xasan Cawke caam ku ahaa runtii maanta waxa Ilaahay qadaray in meeshii xuduudtiisu taalay inuu ku dhintay 1960 ayuu dugsiga hoose oo ku yaalay degmada uu ku dhashay ee Togwajaale ka bilaabay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd 1964 waxa uu dugsiga dhexe ka bilaabay deegaan lagu magacaabo Cadaadley halkaas oo uu ku dhameeyay waxbarashadiisii dugsiga dhexe 1970 ayuu galay oo uu dhameeyay dugsigii sare oo ahaa Camuud kaas oo ku yaalay magaalada Boorame ee gobolka Awdal elementary buu ka baxay dabeedna Cadaadley ayuu galay intermediate-kii secondary-gii wuxuu ahaa Camuud 64 markii ay ahayd ayaa waxaanu iskugu nimid iskuul boodhan oo Cadaadley la yiraahdo oo Hargeysa bariga ka xiga markii dambe iskuul secondary Camuud la yiraahdo baan wada tagnay marka secondary-ga ayaanu isku nimid Camuud Boorame 4 sanadood baan halka iskuul boarding ah oo loo hoydo aanu ku wada noolayn markii uu dugsiga sare dhameystay ayuu galay tababarkii Xalane oo ay xilligaasi ahayd inuu galo qof kasta oo soo dhameystay dugsiga sare hase ahaatee markii uu taasoo idlaystay isla 70-aadkii ayuu bilaabay wixii loo yaqiinay adeega qaranka isagoo macallin ka noqday magaalada Berbera ee gobolka Saaxil Axmed wuxuu ahaa saxafi caan ka ah dhammaan geyga Soomaalidu degto isagoo noloshiisa inta ugu badan ku soo qaatay mihnada saxaafadda cawkadna caanabu ay una malayn maayo qof Soomaaliyeed oo wariye ah oo ka caansan inuu jiro 1973 ayuu Axmed Xasan Cawke ka shaqo bilaabay raadiyo Muqdisho sidoo kalena wuxuu ka soo shaqeeyay telefishinkii Soomaaliya Axmed Xasan Cawke horaantii hore 70-aadkii ayuu ku soo biiray saxaafadda 1972 daacadii raadiyo Muqdisho ka soo biiray ayuu ahaa mar dambe anigu 66 baan idhi Muqdisho aan wada tagnay xalanaan wada galay shaqadii qaranka deedna raadiyo Muqdisho ilaa BBC-da hatta markaan iskuulka ku jirnay marka dibeetiyada la qabanayo dadka wuxuu ahaa isagu majaajileeye ee hadla oo waraaqahan mikrafoon ka samaysan jirnay Camuud buurta dusheeda intaan u baxno ayaan wararka sheegi jirnay ismaanaan lahayn bariga wariyaal baad noqon doontaan runtii ma xusataa markii kugu horeysay idaacad ka hadasho iyo wixii aad ka hadlaysay markaa in fact maalintii ugu horeysay ee aan idaacad ka hadlo ereygi aan iri ma garanayo laakiin waxaan aad u sii xusuustaa 1973 waa muddo dheer maalintii ugu horeysay ee aan war akhriyo bala anigoo 7 cisho ilaa 10 cisho ku jiray ayaa warka la ii dhiibay barigaasina ma jirin af Soomaaligan lagu tarjumayay markaan idaacadii dhameynay warkii ayaa waxaan idhi warba intaas uu nagaga dhan yahay sidii waxaan war dambe oo dhan kala hay Ismaaciil Bakar ayaa wasiir bariga markaas uu warba intaas uu nagaga dhan yahay ka daayo warkii intaas uu ku dhan yahay waan xasuustaa ereygaasi iyo runtii waxyaabo badan ereyga maalintii ugu horeysay lagu qoslay kaasoo marka idaacadii markaas aad ka bilowday radio Muqdisho mise radio Hargeysa radio Muqdisho aan ugu ka bilaabay radio Hargeysa waligii kama shaqeyn 1980 wuxuu noqday wariyihii gaarka ahaa ee madaxweynihii dawladda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxaanu ahaa ilaa burburkii Soomaaliya 1991 mar radio Muqdisho ka soo shaqeynay mar dambe TV-ga ayuu noogu yimid oo
aan ka wada shaqaynay markii dambe madaxtooyada joogay oo isaga laftiisa il wareed ahaa. axmed 1990kii ayuu ku biiray laanta afka Soomaaliga ee BBC-da halkaas oo uu ka shaqaynayay ilaa 2008. 96kii buu noogu yimi BBC-da waqtigaas anigu aan xoogaa muddo ka horeeyay ilaa 7-8 sanadood waanu wada shaqaynay deenin aanu maxay tahay isku cusubnahay ma ahayn wali BBC-da wuxuu noogu yimi 96kii 2008 wuxuu ku biiray laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Mareykanka VOA sidoo kalena wuxuu ka soo shaqeeyay TV-yada afka Soomaaliga ku hadlay ay ka mid yihiin Home Cable TV, Universal TV iyo Somaliland National TV. VOA buu tagay haddana Voice of America wuxuu tagay Universal Television ka leeyahay kan qaranku ugu dambeeyay imika oo uu ku qoraa BBC-da isugu nimi mar dambe TV-yadu ka shaqeeyo TV-gina cable-ka uu ka shaqeeyay Universal ka shaqeeyay VOA ka soo shaqeeyay meel badan buu soo maray marka axmed xasan qawke oo laga bilaabo 1972kii ahaa wariye aan inta badan ka maqnayn dhagaha ummadda Soomaaliyeed waxay dadku ahaayeen kuwa aad u xiiseeya barnaamijyada madadaalada ah ee uu daadihinayo wararka uu soo tabinayo iyo wax walba oo uu soo jeedinayo. axmed oo caan ku ahaa barnaamijkii maqashii madadaale halka sidaadka u weyn looga bartay waxay ahayd dagaaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya 1977kii oo uu ahaa wariye soo jiitay dhagaha dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay dadku ahaayeen kuwa aad u xiiseeya faallooyinkii uu xilligaasi akhrin jiray. waxa uu ka mid noqday muddo yar oo dhowr sannadood gudahood isla sanadkii 77kii 78kii sanadaha wariyeyaasha yar ee farakutiriska ah ee aad loo yaqaano isagoo ku caan baxay faallooyinkii iyo wararkii idaacadda bariga ka bixi jiray Radio Muqdisho oo si weyn xamaasad iyo xiise gaar ah u lahaa xilliga 73 buu aad u soo caan baxay runtii barnaamij markaa muusiga ay maqashii madadaali loo oran jiray ayuu aad ugu soo caan baxay markii dambe qofka ugu wara akhris wanaagsan ayaa uu ahaa warkaad is leedahay aad baad u xiiseenaysay ama waad jeclayd inaad akhrido ama markaad akhriday xiisa dareemaysay really kuwaasi aad bay u fara badan yihiin waayo dee ummaddu waxay wada jecesha oo loo sheega baa jira inta badanna berigii dee Radio Muqdisho la joogay waxay ahayd warar kale oo wax aad loo xiisayn jiray beri waxaa jiray 1977kii dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan faallooyinka akhriyi jiray oo ay ahayd yani qof aan isleeyahay balaa maalinta hadduu dhaafo wax weyn baa dhaafay dadkuna runtiina ana aad ugu soo baxay ayaa moogtay markaa la jecla walow imika de markaan dib u dareemo ee aan dib u eego aan idhaahdo iyo hawluhuba waxay ku wanaagsan in bal hadda labada dawladood ay si isku fahmaanayeen laakiinse wararka yani markaan xiisay lahayd waga bismillahir rahmaanir rahiim ma xiisay lahayd mise yani magaalada maan mari jirin maxamed runtii rag badan oo imika xagiina jooga ama imika ina maqlayaaba way joogeen ama se Soomaalida in badan oo kamid ah way ogeyd wararka ummad waxaan idaacad ka sheego ugu xiisa badneed ayahay iyo dhinaca marka la eegana dhalinyarada iyo soo korasana barnaamijkii madadaalada maqashii madadaal loo oran jiray oo anu gabdha kala wada sheegi jirnay waxyaabo badan oo xiisa la jiray laakiin taay ummaddu ka sinnayd rag iyo dumar ee aanay dhaafi jirin duurnimada faallada allah u naxariistay axmed xasan qawke kaalinta uu ugu wanaagsanaa ee ilaahibada u siiyay oo cid ku gaadha aanay wali Soomaali ka dhalan waxay ahayd kaalinta tabinta sababtaasi oo ahayd sababtii ka dhigtay inuu markasta laf dhabar u ahaan jiray marba kooxda ay barnaamij wada diyaarinayaan xagga saxaafadda laba quality ama laba shay oo caan kaga ah suxufiyiinta kale ee Soomaalida inaan anigu ku adaan ku ayuu lahaa hore waxay ahayd presenterka nimanka la yiraahdo ama dadka bini'aadanka ee dadka wax u gudbiya cod wanaagsan Ilaahay wuu siiyay waanu yaqaanay sida looga hadlo hadduu meydka hadliyo sida meydka hadduu ciyaarka hadliyo sida ciyaaraha hadduu talabaadna waxay ahayd entertainer buu isagoo aan heeso iyo haysan cid music taqaan iyo ayuu 2 saacadood hadduu doono dadka madadaalin karaya ayuu aan laga caajisin
sida dadkii ka agdhowaa ay sheegeen wuxuu ahaa shakhsi leh dulqaad dad afgarad furfurnaan iyo dabacsanaan weliba ay u dheerayd inuu ahaa nin maad badan oo iyada oo shaqo lagu jiro uu dadka ka qoslin jiray si uu daalka iyo walwalka u ilowsiiyo muddaa jirtay intaa u dhaxaysayoo sagaashanaadka bilowgeedu intaan noo iman wuxuu joogay Uganda Kampala barnaamij aan samayn jiray la oran jiray caweyska sabtida oo maalinta sabtida bixi jiray oo ahaa barnaamij madadaalo iyo heeso iyo music iyo wax isku jira dadka madadaaliya ayaan markuu Kampala joogay ka wareysan jiray had iyo jeer maalinta sabtida marka waxyaabo xiiso leh buu soo ururin jiray oo had iyo jeer dadka qosliya oo ma garanaysaa aad u wanaagsanaa kanunigii ka keenay Casa Popolare oo Kenya siin mariyay dabadeedna ku tuuray Kampala waxyaabo caynkaas oo kale taa ayuu aanu samsameyn jiray barnaamijka aan ku diri jiray qof wanaagsan buu ahaa shakhsiyad wanaagsan buu ahaa wariyaasha Soomaalida ka tilmaaman buu ahaa oo xirfadiisa wariyanimo kaga tilmaaman waxa weeye nin aad u dabeecad wanaagsan buu ahaa nin dadku jecel yahay isaguna dadka jecel buu ahaa nin aad u akhlaaq wanaagsan dabeecad wanaagsan shaqadiisu ay aad u wanaagsan tahay dadka aan dhibin aan xanaaq badnayn kaftan badan sheeko badan bulshoowe ah waxaan ku tilmaamo qof wanaagsan wanaagiis lagu tilmaami karo qof lagu tilmaamo ayuu ahaa Axmed weligay aw ko caroonaya ma arag runtii ninkaas oo xanaaqsan waanu muslaxna weligay ma arag shakhsi wuxuu ahaa runtii furfuran oo bulshaya oo waraaba la hadal dadkan la yiraahdo ee mujtamaca nooc kasta ka faqiirka ka waxaysta ka madaxda ka caadiga intaba la wada macaamili kara oo dad dhexgal badan ayuu ahaa hadduu maanta oo dhan hadlay kaliya aan laga caajisin oo qof mikrafoon 3 saacadood laga caajisin haysan kara Axmed baa jiray waxyaabahan oran karo si aad baan ugu xasuustaa waxa kamid ah waxa la deeqda sikhnimada gacanta Axmed haddii inan yar oo kabaha uu u baalasheeyo wuxuu dhiibi jiray wixii jeebkiisa ku jira inay baalashlaa 1,000 shilin doonaya ayuu $20 ama $10 jeebkiisa ku jira u dhiibi jiray وانا حسوستا inay qaardaasadina dhaqaaqeen Axmed min shaqadiisa iyo maxaan kulin shakhsi lagu daydabo ahaa maanta dadka warbaahinta ku jira idaacadaha iyo telefishinada ka hadla qof aan Axmed ku deeno oo aan higsanaynin runtii ugu yar yahay waxaan oran karaa wuxuu ahaa wariyaha ugu caansan ugu codka wanaagsan noogu jecel yahay wariyaasha ku hadla af Soomaaliga ugu dambeyntiina Allah u naxariistay Axmed Xasan Sheekh Suufi Cawke wuxuu 17 November 2015 oo laga joogo muddo 3 sanadood ah ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Togwajaale aaskaasi oo kulmiyay kumanaan dad ah oo isugu jiray mas'uulo macallimiin arday aqoon-yahano saxafiyiin salaadiin وقال وحكرت odayaal iyo dhamaan shacbi weyna kale oo tira badan Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke wuxuu ifka kaga tagay 6 caruur iyo hooyadoo Sacdiya Cabdullaahi Salaad oo ahayd gabadh wariye ah wa ayyam ba ayyam